xogayaha xiriirka gobolada xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucud Cabdiqani Salaf oo ku sugan magaalada Berbera ayaa kulan warbaahineed gurdhow ku qabtay Hotel Mansour ee magaalada Berbera waxa uu ka hadlay waxyaalihii soo jiitay muddadii uu ku sugnaa magaalada Berbera waxaanu si gaar ah u xusay goobta loo qorsheeyay gaadiidka u kala goosha gobolada Somaliland oo ay hirgelisay dowladda hoose Berbera waxaanu golaha deegaankaasi uu ku amaanay goobtaasi oo uu sheegay in hab casri ah loo dhisay ku suganahay Berbera wafdi xisbiga Ucida aniga xogayaha xiriirka gobolada xisbiga Ucid oo uu helinayo diblomatic sare oo ka socda wadanka Chile ee ku yaala South America magaciisa la yiraahdo Christian Khara oo dhinaca fadhiya oo ah mas'uul ka socda xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalka Chile magaciisa la yiraahdo Radical Social Democratic Party iyo aniga ayaa maanta ku nimi booqasho gaaban Berbera runtii si fiican baa loo soo dhaweeyay oo naga mahadnaqaynaa reer Berbera soo dhaweynta aad iyo aad naga mahadnaqaynaa mas'uulkan ila socday aniga oo Master Christian Khara u yimi shirweynaha afraad ee xisbiga Ucid oo berri ka qabsoomi doona Hargeysa Hotel Mansour ergooyinkii shirka u yimi kan nagala soo qayb galeen oo kamid ahaa maadaama xisbiga Ucid uu ku jiro International Socialism Party uu ku jiro xisbiga Ucid oo xisbiga qaranka ugu daada weyn oo 20 sano jiray isla markaana kamid ah dalladda magaceeda sheegay oo in ka badan 180 dal adduunyada oo dhan ay ku jiraan mas'uulkan ay ag fadhiyaan raggii loo soo diray uu kamid yahay waxaan maanta doonay halkan dul istaago inaad ugu farxay Berbera terminal bus oo aanu meelaha booqanay maanta kamid ahaa airport waan booqanay dekada waan booqanay laakiin alxamdulillah si fiican baa loo soo dhaweeyay waxaan aad u jecelahay inaan dul istaago oo ku hambaleynayo golaha deegaanka Berbera hirgelinta terminal buska oo aan oran karo garoon diyaaradeed baa la moodaa si loo qurxiyay sidii loo baahnaa ayaa loo balaariyay dadkii bacadka taagnaa shalay ee basaska ku sugayay Berbera kulayla xilliga xagaaga maanta waxay haystaan inay ku fadhiistaan sidii terminalkii diyaaradaha meel ay fadhiistaan kuraastii leh oo harkii leh oo xafiisyadii shirkadaha basaska dhan ku yaalaan goboladu oo wax walba ugu dhameystiran yihiin oo baaxad weyn oo ku filan leh taasi waa arrin aad loogu farxo waan ku hambaleynayaa dhammaan oo isku duuban golaha deegaanka waxaan si gaar ah halkan ugu mahadnaqayaa xildhibaan Jaamac Maxamed Cabdi macaf oo nagu soo dhaweeyay magaalada aad baan ugu mahadnaqayaa golaha deegaanka oo isku duuban waxaan ugu mahadnaqayaa oo aan ku dhiirigelinayaa in shaqada ay ka qabteen terminalkaas tahay shaqo loo baahnaa dhammaan gobolada kale ee Somaliland waxaan leeyahay golayaasha deegaanku waa in gobol walba laga hirgeliyaa terminal baskaas oo kale taasi oo wax badan ka qaban karta samxadda basaska ee magaalada gudaheeda marka gaar looga saaro meel u gaara oo masaajidkii iyo tukaamadii iyo xafiisyadii iyo musqulihii iyo dhammaan adeegii loogu talagalay leh loo sameeyo basaska laga saaro magaalada runtii waxay soo kordhinaysaa bilic waxay qayb qaadanaysaa in muwaadiniin si fiican loo igu nastaan ugu raaxaystaan sidoo kale deewaano wax tar weyn oo dadkii dalka wax loo taray waana runtii wax aniga aad ii soo jiitay iyo saaxiibkayga oo ila socdaba aad iyo aad uga mahadnaqaynaa arrinta golaha deegaanka isku duuban especially golihii ka soo baxay xisbiga Ucid ama groupkii hore ka soo baxay Ucid ha noqdaan ama qolada dambe Ucid ka soo baxday ha noqdaan waxaanu leenahay taasina waa wax soo saarkii Ucid ay soo hoosgelaysaa maadaama golihii horena qaybta ugu muhiimsan ka soo baxeen golahan dambana qaybta ugu muhiimsan ka soo baxeen isla xisbiga waxaan leenahay hambaliyo iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga Ucid oo leenahay ka soo qaybgal wanaagsan si nabadgelyo iyo shirkii afraad shirweynaha afraad xisbiga oo berri ka dhici doona magaalada Hargeysa Aslax Salbaasideed telefishinka Sahan Berbera abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus
hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland